dhawaan ayay ahayd markii ay goobtani ay goday waa wadada isku xidha Qabri Dahar iyo degmada Shilaabo. wadadani waxaa gooyay fatahaada toga faafaneed oo markaasi mara buundada Malka Afweyn ee degmada Qabri Dahar. goobtani ka sokow caqabada ay ku hesho bulshada dhanka isku socodka waxaa hadda ay keentay khasaaraha intaasi leeg waxaana goobtani hadda ku dhacay gaari noociisa loo yaqaan Shamboga. gaarigan ayaa darawalkii waday marka uu goobtani u dhow yahay ayaa waxa uu ka waayay bareegi kabacdi waxa ay sababtay inuu markaasi goobtani godka ah ee buundada ee hore u goday inuu markaasi gaariga uu ku dhaco. xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ilaa heer deegaan goobtani waa ay soo gaareen si ay markaasi xal lagu raadiyo isku socodka bulshada. ilaa iyo hadda talaabo la qaaday ma jirto oo bulshada lagama sameeynin goobtani. caqabadu waa mid taagneed hase ahaatee waxa hadda ku darsamay in khasaaraha inta la eg ay markaasi goobtani ay ka dhacaan. Shaambal Cabdifataax Maxamed Shakuul madaxa taraafikada gobolka Qoraxay ayaa sheegay in ay arintani ay ku timaaday taxadar la'aan uu sameeyay wadihii gaariga iyo waliba cilada kadiska ah ee gaariga ku timaaday. waxaan ahay Shaambal Cabdifataax Maxamed Shakuul madaxa taraafikada gobolka Qoraxay halkan aan taaganahay hadda waxa ka dhacay waa goobta ay ka gooneed buundada gobolka Qoraxay buundada Qoraxay meesha ay ka gooneed weeyaan waxa gooyeen nimcada roobka goysay wadadani waxay isku xidhaysay gobolka iyo degmada Shilaabo hadda in muddo ay go'aantay roobka gooyay marka maanta saaka oo ay taariikhdu tahay 6 bisha 9 2013 4 saac subaxnimo waxa ku dhacay gaarigan adalataan idin muuqda gaariga taariikhdiisu waxa weeyaan koortiri weeyaan eber konton 7 sm weeyaan waxa hadda kulay waxyaalo wadada wax ku noqday waxaa jira darawalkii oo kaliya ayaa dhaawac fududa wax dadoo kale waxba kuma noqon sida aan magaranaysa aan xogta ku helay report aan ku qaadanay maadaama roobab aad u fara badan daayaan oo aan xilliyadan imika lagu soo beedanayo in soo dhaafnay aynaan helin in aad iyo aad si looga taxadaro meelaha godadka ama buundooyinka ama jilicsanayna go'aan laga yaabo taasan iyadan kaga faa'iideysanaya bulshada aan sheegaya bal inay ka faa'iideystaan arrintaas darawalada khaasatan darawalada gaadiidka wadada rakaabka qaadaya buundooyin fara badan oo jilicsan baa jira hadda laakiin hadda ka hor caadi loo mari jiray marka ay marayaan inay si taxadar loo maraan ma soo jeedinaya darawalada. dhankiisa mulkiilaha gaariga mudane Farxaan Sheekh Maxamed ayaa dawladda ka codsaday in bulshada goobtani laga hagaajiyo. aniga waa Faarax Sheekh Maxamed ahna mulkiilaha gaarigan aad aragtaan gaarigan saaku meesha ku dhacay wuxuuna ugu dhacay sabab aduu wadada ayaa go'aneyd muddo fara badan taasoo xil la iska saarin sameynteeda oo dawladuna ay ka warqabtay marka waxaan codsan lahayn inta ay dhicin kuwa kale inay sidan oo kale ugu dhacaan oo dhibaatooyin badan oo kale ay ka yimaadaan in tan la sameeyo kuwa wixii kale ee sameyn u baahana iyadana sidoo kale loo sameeyo aan dawladda ka codsanaynaa. maxaa wax ku noqday gaariga waxa darawalka dhaawac fudud ku gaaray waxa neefta qabatay intuu steerinka laabta kaga dhacay laakiin hadda dadka si laba wiil oo kala saaray labada wiil oo kale alxamdulillah way leedayihiin wax dhib gaaray ma jirto marka darawalku bay wax gaareen darawalkuna hadda uu fiican yahay gaariga wax gaaray oo cilada gaariga markii la soo bixiyo baa la ogaan doonaa cilada uu qabay iyo say wax u gaareen hadda wuxuu ku jiraa meesha aad aragtaan. haddaba waxa loo baahan yahay in xukuumaddu ay u istaagto sidii markaasi ay bulshadani kala qoqoban isla markaana kala xireen iskuna gudbila wax looga qaban lahaa wadadani isla markaana dib habeen loogu sameeyay lahaa. Lumaan Cabdi Axmed SRTV qablaha Malka Afweyn degmada Qabri Dahar gobolka Qoraxay.